dadku ka aflaxaanu daabaca tacliin taariikh dalaga iyo beeraha kayaambada u taabto dhaqaalaha durkinayaale dhaqaalaha durkinayaale كندجي أقونتو dadku ka aflaxaanu daabaca tacliin taariikh dalaga iyo beeraha kayaambada u taabto durkinayaale dhaqaalaha durkinayaale بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم halkan haddii alla idmo waxaan rabaa xoogaa taariikh ah in aan ku qabto oo aan ula dan leeyahay hadda ahaan dhisidii puntland iyo siday ku timid iyo wixii la xiriira arrintaas intii ka dambeysay oo la dhisay iyo wax yaroo taariikhdii ka horreysay iyada aan ka taataabanayo magacaygu waa cabdirasaaq cabdidaad waxaana xubin ka tirsan golaha lagu magacaabo samatalis oo ah dad is aruursaday oo ku midoobay in ay ummadda soomaaliyeed oo uu ku dhacay jahawareerku intii karaankaya ah in aanu iftiiminno waxa soomaalida ka murugsan iyo siday waxu murugsan yihiin iyo sida lagaga bixi karo iyo sidaalaha ay ku yimaadeen waxa hadda jira wixii laga gaari karo aan ka awoodi karno markaan u soo noqdo hadalkaygaan hadda ah aan ka bilaabo anigoo soo koobkoobaya soomaalidu markii hore iyadoo u badan xoolo dhaqato oo xoolaheeda dhaqata magaalooyinkuna yar yihiin xeebaha dadka ku dhowdhowna ay debadaha iyo bini aadamka kale wax ka gaargaaraan oo bini aadamka kale iyo xeebuhooda way isku xiran yihiin ilbaxnimadu aan laga marnayn iyo xogogaalnimada adduunka laakiin majority-gu yahay ama sida qaalibka ah oo dadku u badan yahay ay xoolo dhaqato yihiin beeralayduna ay ka badan yihiin reer magaalkana ay ka badan yihiin iyo kalluumaysatadaba dadka xoolo dhaqatada ah uu yahay Soomaali boqolkiiba 90 ay maaragtay iyo wax ku dhow ay ahaayeen oo ay xoolahooda dhaqdaan dawladnimo iyo calan u taagana uusan jirin meelo ay ka jiraan maamulana jiraan laakiin maamuladaas aanay ahayn habka casriga ah oo dawladnimada ee ay ahaayeen maamulo la xiriira dhaqan ku tiirsan arrimo dhaqan ku tiirsan ay ahaayeen sidaa goor la yahay baa waxaa yimid ajnabigii baa waddanka yimi ajnabigii hadduu waddanka yimi waa soo koobkoobayaaye dhexgalkii uu bulshada soo dhexgelayay farsamooyin badan buu u adeegsaday taas hadda qasdigaygu maaha inaan sharaxaad ka bixiye waa u suuro gashay ugu dambayntii inuu ajnabigii gumaystaha reer Yurub uu dalkii Soomaaliya gacanta ku dhigo Soomaaliya la qaybiyo Soomaaliya lagu habsado mid iyo magaalaba gacanta lagu dhigo waa lagu guuleystay dabadeed ummadii Soomaaliyeed waxaa ka bilowday gudaheeda in ay dareen wadani ah mid jihaado diini ah in la yiraahdo war waxa kan ma dhowran kara aan iska kicino hadda ummad meel degan waa yeelanaysaa kuwo ka gaabiya inay halganka u istaagaan ka gaabiya
qaar hungurigu qaado oo ajnabiga la safta iyo qaar ka dagaalamaba intaba waa yeelanaysaa intiibana waa la yeeshay hase yeeshee ummadda Soomaaliyeed si guud kacdoonkii gumaysi iska xoreynta ahaa kii ugu weynaado guushana gaaray markii dambe markii laga soo kaco halgamadii hubaysnaa oo kii sayid maxamed ka mid ahaa oo ugu weynaa iyo kuwii kale oo aanan hadda qasdigaygu ahayn inaan faalla ka galo halgankii ugu weynaado lagu guuleystay wuxuu ahaa SYL buu ahaa marka SYL markii ay ku guuleysatay inuu maaragtay ajnabigii xornimo laga qaato ajnabigii meesha kama bixin asaga iyo dadkii la shaqeynayayba waxay saameyn ku yeesheen gobonnimadii la qaatay iyo dawladnimadii dhalatay bay saameyn xoogan ku yeesheen isla markiiba ujeedooyinkii gobonnimo doonka ee Soomaali midaynteeda Soomaali weyn oo dhan iyo dawlad xalaal oo nadiif ah ummadda u adeegta inay dhalato iyo in laga baxo qabyaalad iyo musuqmaasuq oo loo gudbo qarannimo wanaagsan oo horumar tiigsata bulshadeedana u adeegta arrintaas laba cadow baa ku yimi cadow jahligu ahaa oo aan dalkan hore looga aqoon dawladnimo casri ah oo maaragtay dalka ku cusbayd oo warka ajnabiga wax ka dheeriya aan la aqoon oo dawladnimo ku saabsan waxa uu ajnabigu ka sheega maahe marka jahligaas cadow buu ahaa oo hadda dadkii aqoon badan uma lahayn inay dawladnimo maaragtay hanaqaada samaystaan oo ilaaliyaan hufnaanteeda iyo u adeegida bulshada cadowga labaadna wuxuu ahaa gumaystiyo aan ka lugta kala bixin maskaxdiisii iyo tababarkiisii iyo rabayntiisii iyo dadku saameynta ku yeeshay ama kuwu ababiyey ha noqoto oo asagu tacliimiyey oo askaro iyo isugu jira iyo civilba ama dadkii markii horeba la shaqaysanaya ha noqdeene gumaystaha saameyntiisiina cadow bay noqotay oo saameyn adag oo waxay ku yeelatay dawladnimadii inay hanaqaad fiican noqoto caqabad ku ah labada caqabadood baa lala kulmay markii gumaystihii baxay dabadeed dawladdii rayidka ahayd dadkii madaxda ka ahaa wax kasta oo duruufo adag oo ay la kulmaan iyo labada caqabadooda aan sheegayo oo haystayba haddana karaankooda waxay isku dayeen in ay wax dhaqaajiyaan oo wax ay sameeyaan dadku inay codkooda la baxaan hadda cod bixintii iyo codkii lala baxayay dhibo badan baa ka yimi oo labadaas sababood aan sheegayo sabab u ahaayeen faragelinta gumaystaha iyo aqoon la'aanta dawladnimo casriya aan la aqoon dhibo badan baa ka imanayay adigu iyadoo maaragtay dadku sida ay wax u rabeen arrintu aysan ahayn sawirkii la malaysanayayna aan lahayn oo la gaarin laakiin wadankuna nabad yahay xorriyatul qowlna jiro wadanka dhaqaalihiisuna uusan maaragtay horumar laga shaqeeyay basically oo muhiima uusan jirin laakiin wadanku shilinka Soomaaligu dollarka la siman yahay oo anuu caqligayga markaan wax kala gartay halka dollar 2 shilin oo Soomaaliya ah marka dalkaas waxaad ka qiyaasi kartaa ummadan dhaqaalaheedu sida uu u dhaqanaa markii shilinkaagu dollarkii la siman yahay dollarkuna uu kan maanta ahayn kii yahay 60maadkii waxaad arkaysaa in dhaqaalaha wadanku uu soo hooseyn oo aad u wanaagsanaa waana mararka la leeyahay Soomaalidu khaliijkay u gurman jidhado wax ugu deeqi jidho wax siin jirtay marka si kastaba ha ahaatee iyadoo shacabku sidii dawladnimada hadii la helo iyo gobonnimada hadii la gaaro la malaysanayay in la heli doono aan la helin oo laga yabaalay sidii wax ahaayeen laga yabaalsan yahay nololna jirto nabadina jirto dhaqaaluhuna maaragtay wadanka dhaqaalihiisuna saa shilinkiisu yahay ninka askariga ahi si fiican u dhaqan yahay iyo sarkaalkiisu askartu sida hadda tahay aanay ahayn xilligaas ayaa waxaa kacay ciidamadii
ciidamadii waxay is yidhaahdeen midhaa ka reeya xoog bay dalkii ku qabsadeen military kacaan baa dhashay baa la yidhi xooggaa military ciddii aan la socon oo taageersanayna waa dibi socod baa la yidhi waana la xirayaa waddankii markaa waxaa ku timi xirid iyo caburin iyo kala firir baa meesha soo kordhay marka kacaanka markii hore sacab badan iyo taageero badan buu helay oo ay sababtu ahayd markii hore yabaalkii laga yabaalayay oo laga yara niyad xumaa sidii la filanayay haddii gobonnimo la gaaro sidaasaa markaa kacaanka jawaab wuxuu helay aada iyo aad shacabkii soomaaliyeed ay u istaageen oo u sacabiyeen hase yeeshee haddii meel qori talinayo oon ra'yi talinayn oo wada tashi jirin oo wax maqal keliya qofkii la leeyahay caburin sidaas ma sii socon karto kacaankii markaa wuxuu karaankiisa isku dayay bilowgiisii hore inuu wax qabto isku dayay ama iskuulo iskaa wax u qabso lagu dhisayo ama cusbitaallo lagu dhisayo iskaa wax u qabso shacabkii baa la howlgeliyo oo laleeyahay wax qabsada wax dhisa hase yeeshee caburintii waxay caburintii keentay guux waxay keentay wax tabasho waxay keentay suuragal ma aha dadka in caqliga laga qaado oo la yidhaahdo qoriga keliya baa hadlaya kacaanka ammaan haddii kale daalim baa tahay arrintaasi waxay aakhirkeedii keentay inay waddankii dhowr inqilaab baa maaragtay baa la isku dayey inqilaab wuxuu ahaa inqilaabkii ugu horreeyey oo niman reer waqooyi oo saraakiil yaryar iyo dhalinyaro ay isku dayeen oo waqooyi in maaragtay la gooyo ahaa kaas inqilaabkaas dil iyo xabis iyo dhib midna ma yeelan si hawl yaroo qabow baa lagu dhameeyey oo lagu xaliyey waana dowladdii ka horreysay kacaanka inqilaab labaad baa kacaanku ka shakiyey waa tu u leynayay rag saraakiishii u sarsaraysay oo kacaanka kuwii wax ka dhaliyey ah oo caynaansho iyo inadheel iyo raggi ay ka midka ahaayeen markiiba kacaanku isagoo wax inqilaabay buu haddana cidduu inqilaab uga boqo laynaya misna inqilaabkii labaadna waa tuu haddana yimi isaguna oo dagaalkii 77kii oo sidii dagaalka lagu galay ay ahayd kacdoon weyn oo gobolladaas Ethiopia haysato jabhadihii ka abuurnaa in la garab istaaga ahayd hase yeeshee talada tala kacaanku wata ay ahayd aanay ahayn talo dadka waxgalkiisii oo dhammo ay u midaysan yihiin war maynoo habboon tahay inaan saa yeelo xaggee baynu u soconnaa maxaa ka dhalan kara tala ka baaraandega oo badani ma jirin kacaanka uunbaa durbaanka tumayey oo lagu raacayay wixii ka soo horjeedana ama kacaanku waa xiraya ama waa cararayeen oo waa ka dhex cararayay dagaalkii markaa Ethiopia waa lagu fashalay waa tii ajnabigu u hiliyey Ethiopia oo maaragtay reer galbeed iyo reer bariba naatiyo waarsaba waa tii u hiliyeen Soomaalidu markii hore guulo degdegay ka gaartay hase yeeshee waa lagu jabay waxaana loogu jabay hadda naatiyo waarso Soomaaliya kaligeed iskama celin karin tabarna uma hayn marka maxamed siyaad barre isma casilin markaa la jabay ciidankiina burburay dabadeedna kala firfirkii mar haddii dalku dagaal galo hadduu dagaal galo oo dagaalka ku fashilmo dalka gudihiisa ayaa burburku ku soo noqda burburkii wuxuu ku soo noqday gudihii Soomaaliya ayuu ku soo noqday maxamed siyaad barrana fakarkiisii taladii adkayd ee qoriga la xariidhay xoogga iyo militariga ku socotay waxba badan kama uusan bedelin arrintaas markaa burburkii wuxuu dhalay inqilaab kale oo la leeyahay dalku meel xun buu ku socdaay aynu ka qabanno ay ku tashadeen rag saraakiil oo militariga Soomaaliya ka tirsanaa oo tiro badan oo sida loo saariyo reer maaragtay inay reer u banaayeen ay sarun ahayn Soomaali militarigeedii ay ku dhan yihiin qabaa'ilkii Soomaaliyeed xoogoodii ku dhan yahay buu ahaa markii inqilaabkii fashilmay baa la reereeyay kacaankaana reer maaragtay gaara u saariyay oo markaa uu il gaara ku eegayay kacaanku inuu reerkaas si gaara ula diriro waana ula dirirayba dabadeedna waxaa furmay jabhadihii haddii jabhadihii furmeen haddii cid waliba qori bay qaadatay ilaan qori ma hadli kadhid waddankana waa la wadaagaa taladiisana waa la wadaagaa wax dheefkiisana waa la wadaagaa marka juuma oran kadhid aniga kaliya in maqal sidaa dal kuma horumaro dadna kuma horumaraan
keligaa ku maqli mayno qof baa tahay maxamed siyaad barrow kaana yeeli mayno in keligaa aanu kuu heesnay in keligaa aan ku maqalle dalka waa kula leenahay baa timi qori baa laysu maarta wada qaatay jabhadihii baa furmay soomaali qabaa'ilkeedii intii badnayd waxay ka silmeen jabhado iyo qori waddankii oo dhanna qorigii baa ku baahay iyadoo la xasuusan yahay markii militarigu ay talada la wareegayeen gacan dowladeed qori ku jira maahae qori kale inuusan jirin oo shacabku faramarnaa oo ka faramarnaa wax hubaba dowladdii hore oo maarata rayidka ahayd keligeeda ay hubka gacanta ku haysay gacaanku markii uu qori isticmaalay baa loo baahday qori baa u jawaabi karabaa timi sidaasaa waddankii oo dhammi jabhada ku noqdeen sidaasaana qorigii dalka ugu baahay